jiyaangi ziya maanta adiga wax walba waad soo afjartay waana soo dhameysay wax walbana meeshan ayay ku dhamaadeen si ay wax walba run u noqdaan sheekadan oo idil waa inaan soo kabakabeeyaa wax walba waxay noqonayaan wax qurux badan jiyaangi ziya ku soo dhawow noloshaan maanta ka bilaawda waxaa tahay madaxa ugu weyn jiyaangiyaasha adiga ayaa ah kuusoo dhawow cadow kale ma jirin aan ahayn saaba waana soo afjartay hadda adiga waa xilligii abaalmarinta aad heli lahayd intay waxaan jiraan dad badbaadaya ma lahan qof noloshiisa xor u noqonayna ma lahan weligeeda cadaalad ha jirto wax walba waa inay dhammaadaan qalad ayaad gashay adiga waxaan inaad samaysid qalad ayay kuu tahay qalad weyn ayaa ka qalad aad u weyn marka jiyaangi ziya wuxuu soo afjaray wax walbo xitaa wuxuu baabi'iyay xaakimyaasha si ay wax danba u soo laabanin magaaladan waxay noqotay dadka ku nool dad rajo leh sidoo kale waxay noqdeen dadkoo idil dad faraxsan aniga markaa weynaad waxaa noqonayaa hiiro dadka dhan waa badbaadinayaa laakiin xaakimyaasha tay ku dambeeyaan hadda wax xaakim la dhahaayo ma jiro keliya qofka cadaalada badan oo keliya ayaa noqonaya xaakim qofka xaakimka ah lee xaakim noqonayo waan ka helay qofka xaakim ah lee xaakim mar walba noqonayo waan ka helay mid xaakim ayaa ahaa oo hadda saamaw cadaalad ku soortayni ninkaneed ayaa waxa dhan siisay anigan waxa isiisa manaaqiyaanoole ayaa war ninkan wuu kaa saxsan yahay maxaa waxaad ku dhaqmaysid wuu kaa saxsan yahay ninkan maya asiga ayaa u heelinaysaa mar walba soo maahan haa u heeli dhib ma lahan aniga qof kale ayaa raasanayaa war fiir adiga ha canaaqin hana qaraarin waxaana ciyaar waayo adiga waa lagaa guulaysa orod iska bax
ساقبت واشتي waxaan nagaaga mahad celinaynaa qaadashada ushii jiyaangi musalsalka inta ayuu ku egyahay intii musalsalka ku kulmay sidaas ay nabadgelya توسي